بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa sharaf weyn iyo farxad iyo maanta inaan galabta imaado magaalada Beledweyne oo ah magaalo taariikhi ah oo Soomaalidu oo dhan ay taqaano isla markaana ah goobtii doorashada ee labaad ee Hirshabelle ay ka dhacaysay waliba ay ka dhacaysay kuraasta ugu badan oo 25 kursi ah maadaama aan kamid ahay murashaxiinta sanadkan oo dareynaya inay kamid noqdaan xildhibaanada runtii inaan magaaladan imaado waxay ahayd waqtigan ka hor inaan imaado laakiin duruufaha jiray iyo wixii dhacay awgeed ayaan maaragtay la baaqsaday laakiin maanta aad baan ugu faraxsanahay in aan soo gaaro magaaladan anigoo caafimaad qaba magaaladan runtii waxaan magaalada ay igu leedahay taariikh aad u dheer waxaan ku ciyaari jiray kubadda horaantii 9aadkii waxaan ka soo shaqeeyay anoo wariye ah xilliye ay daadad ka dhaceen 2007 oo runtii ay dadku meelahan hadda aan joogno oo garoonka ay dadku soo barakaceen marka waa magaalo aan aad u aqaano oo waliba tababaro xagga saxaafadda aan ka sameeyay marka magaaladan ma aha magaalo aan marti ku ahay waa magaaladeedii waa magaaladii aan maaragtay kursigeyga u yaalay runtii marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maanta Hirshabelle oo maaragtay iswaafaqsan ay halkan wada joogto runtii waqti ay qaadatay duruufaha siyaasadeed ee waddanka jiray awgeed laakiin maanta waxaa maaragtay nasiib wanaaga in madaxdii iyagoo wada jira reer Hiiraan iyo Hirshabelle ay wada fadhiyaan oo ay maaragtay arintoodii ay meel wanaagsan gaartay doorashadii ay dhacayso waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in doorashadan ay qabsoonto runtii aniguna waxaan ahay marka musharaxiintaas Soomaaliyeed waxaan ahay qof soo shaqeeyay muddo dheer shaqeynayay sport ka shaqeeyay arrimo kala duwan ka shaqeeyay caafimaad ka shaqeeyay saxaafadda muddo dheer ka shaqeeyay wariye noqday haddana dawladda la shaqeynaya marka waxaan rajaynayaa in aan u tartami doono tartan marka la yiraahdo waa qof kasta waa nasiibkiis waa galaangalkiis marka waxaan rajaynayaa markaan reer Beledweyne inay maaragtay gacan isiin doonaan dad badan oo magaalada markii ay arkeen boorkii aniga aan lahaa oo magaalada bartamaheeda ku dhagsan dad badan oo reer Beledweyne ay soo wacay waxaa jooga dadkii saaxiibada aan kubadda wada ciyaari jirnay marka maanta meesha aan joogo ma magaalo aan marti ku ahay sidaa awgeed waxaan maaragtay rajaynayaa in aan tartankaasi saraaxad u dhaco madaxda Hirshabelle oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Haagar Dabageed oo labaduba aan aqaano muddo aad u dheer maadaama aan ahayn wariyo halkan ka shaqeynayay deegaankan ay deegaanadeedu ahayd runtii waxaan rajaynayaa in Ilaahay maaragtay doorashadan si wanaagsan uu soo gabagabeeyo reer Beledweynena waa aad iyo aad ugu mahadsan yihiin soo dhaweyntooda iyo waliba maaragtay sharafta ay ku leeyihiin Soomaaliyeed kale waxaan rajaynayaa in nabadda hadda ay haystaan ay sii xajiyaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin